Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarey kusoo dhawaada meel walba dunida dacaladeeda ka joogtaan. Saf TV waa channelkii aan ugu talagalnay Arsenal fans ama taageerayaasha Arsenal. Fadlan haddii aad channelka subscribe inoo saarin subscribe inoo saar. Haddii aad ila socoteena aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Haddaba wararka maanta aan halkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah in Arsenal ciyaaryahankii ay raadinaysay waa Timber ciyaaryahankii difaaca ahaa ee Ajax u dheelayay ayaa maanta waxay bandhigtay lacag 45 milyan ah ilaa lacag 48 milyan ah kaasoo ay ku dooneysay ciyaaryahanka inay kula soo wareegto kadib markii lagu soo celiyey lacagihii hore ay bandhigtay 30 milyan ee weegii hadda lasoo dhaafay ay bandhigtay. Marka ciyaaryahankaas Arsenal heshiis ayay la gaartay kaasoo soconayo ilaa 2028. Marka xagga ciyaaryahanka iyo Arsenal hawshu waa ka dhammaystiran tahay. Waxaa la rajeynayaa in Arsenal in maanta lacagta ay bandhigtay laga aqbalo dabeedna ciyaaryahanka ay sidaa kula soo wareegto. Runtii waxaa la rajeynayaa lacagtan inay maaragtay aqbali doonto Ajax oo maaragtay heshiiskanba uu soo gabagaboobi doono beri dambe ciyaaryahankana loogu dhawaaqi doono inuu yahay saxiixii labaad ee Arsenal ay samaysay. Marka ciyaaryahanka halkaa ayuu marayaa isaguna warkiisa waxa weeyaan waa saxiixii labaad ee Arsenal ay samayso runtii. Hadallada u dhexeeya Arsenal iyo Ajax meel fiican ayay marayaan waxaana loo badan yahay lana rajeynayaa in ciyaaryahankan uu noqon doono saxiixa labaad ee Arsenal. Haddaba ma ku faraxsan tahay Arsenal saxiixan labaad ee ay samaysay ama ay samaynayso maanta? Wixii maaragtay fikradda waa xaggiina ciyaaryahankaas halka ayuu marayaa warkiisa runtii waxa uuba kasoo horeynayaaba Declan Rice. Sidoo kale isna ciyaaryahanka Declan Rice ayaa isna la rajeynayaa wiigan in uu soo gabagaboobo ciyaaryahankana uu kusoo wareega maaragtay Arsenal. Man City ayaa ilaa hadda waxa lacago ay bandhigtay aysan jirin inkastoo ay ku rajo weyneed inay dhigto. Taana waxaa lagu cileeyay in ciyaaryahanka uu doortay inuu ku biiro Arsenal. Marka ciyaaryahankaas isaguna wakaasa heshiis fudud ma ahan runtii si markii loo fiiriyo oo 100 milyan ciyaaryahan laga bixinayo aad bay u adag tahay. Si markii loo fiiriyana Arsenal haddii ay ciyaaryahankan saxiixdo wuxuu u noqonayaa maaragtay transfer window wuxuu noqonayaa maaragtay suuq aad u fiican ayuu noqon doonaa. Club record ayuu noqon doonaa. Ciyaaryahan fiican oo ay la soo wareegan ayuu noqon doonaa. Waxay noqon kartaa xilli fiican oo ciyaaryahanka ay saxiixday uuna u sii diyaar galoobi karo inta aan la sii gaarin pre-season-ka. Runtii Arsenal suuqan sida ay wax u wado aad ayay u fiican tahay. Waxaa ogtihiin suuqan suuqii ka horreeyay season-ka inta uu bilaabanna hadda dhammaaday. Arsenal waxay keensatay Gabriel Jesus iyo Zinchenko welibana xilli hore ayay keensatay markaasay ciyaaryahanadii ay tababar sii siisay fitnesskooda. Dabeedna pre-season-kiiba waa kii ay ku tunteen maaragtay Sevilla iyo Chelsea iyo intay maaragtay ay aadeen USA ay haddana ay maaragtay koobkii Florida ay soo qaateen. Marka ciyaaryahanada maaragtay aad bay u fiican tahay suuq markaa ku jirto inaad maaragtay early stage suuqa xilliya maalmaha ugu horeeya maaragtay inaad ciyaaryahanada aad soo qaadato si ay ugu diyaar garoobaan season-ka kusoo food. Marka ciyaaryahankan isagana warkiisa waa sugi doonaa. Waxaa leeyahay ma fududaan doono maaragtay Arsenal ciyaaryahankan sida hadda ay u dhameysay Kai Havertz iyo Timber iyo sidaa uma fududaan doono aad buu u adkaan doonaa. Hase ahaatee waxaa la rajeynayaa maaragtay wiigan iyo wiigii xigo soo socdaba in Arsenal ciyaaryahankaas isaguna ay maaragtay aad ugu waaweyn tahay inay la soo wareegi doonto. Saxiixyadii ugu waaweynaa waa kuwa Kai Havertz waa la dhameeyey. Timber sidoo kale isna waxay u egtahay almost in Arsenal ay ciyaaryahanka ay la wareegtay. Waxaa noogu xigi doona Declan Rice. Romeo Lavia ayaa isna u dambeyn doona. Sidoo kale isna ciyaaryahankaas aad ay Arsenal maaragtay u raadinaysaa wayna ku rajo weyn tahay inay soo qaban doonto. Hase ahaatee waxa hadda howlin hayay ka hortaaganaya waxay tahay heshiisyadan waaweyn ee hadda ay lugaha kula jirto waa Timber iyo maaragtay Declan Rice. Sidoo kale Arsenal waxay suuq soo bandhigtay sidaan horey kugu sheegayba xalay ciyaaryahankii ahaa Balogun suuqa ayuu yaalaa isna ciyaaryahanka 30 milyan ilaa 35 milyan ayuu suuqa ku yaalaa. Sidoo kale wararka ayaa is soo tarayaan in sidoo kale Arsenal ay suuq u soo dhigtay ciyaaryahanka Nketiah isna 40 milyan maaragtay ilaa 45 milyan ay ku dooneyso. Labadana suuq ay ka yaalaan. Bal ka waran ciyaaryahankii Partey ahaa isna xaguu ku dambeyn doonaa? Partey isna weli Arsenal ciyaaryahanka weli waxaa aad u raadinaysa
Juventus inkastoo kalaabyo Sacuudiga iyaguna ay soo dalbanayaan ciyaaryahanka inay la wareegaan ay rabaan, Arsenal xaggeedana waa ka go'an ciyaaryahanka haddii uu asaga go'aan qaato in ay dirto. Marka asaga xaggiisa un baa laga rajeynayaa inuu go'aan qaato si uu hawsha u fududeeyo. Marka waxaad moodaa ciyaaryahanka xoogaa inuu is yara adkeynayo uu leeyahay Champions League baad soo shaqaysatay maxaa lagaaga dirayaa. Marka ciyaaryahanka ilaa hadda wuu aamusan yahay, wax war ahna lagama hayo. Hase ahaatee halka uu ku dambeeyo ciyaaryahankaasna waan ogaan doonaa. Suuqa weli cabaar baa ka dhiman, suuqa ma dhow xilligii la xiri lahaa. Weli waxaan ku jirnaa bilowgii un baan hadda dhex taagannahay. Marka isna waa arki doonaa. Sidoo kale Kai Havertz ayaa isna la rajeynayaa in isbuucan dhexdiisaba lagu dhawaaqo oo funaanadiisa horey kasii xirto. Shalay wuxuu soo dhigayay sawir asaga ay iskula jiraan ciyaaryahanka Jorginho. Marka emoji oo xoogaa qosol iyo indhahana wuu soo dhigayay. Marka already waaba nin waxaan u maleynayaa eriyada mar buu soo booqdaan u maleynayaa. Marka waa ciyaaryahankaasna medicalkiisa waa u dhammaaday, wax walba waa u dhammaystiran yihiin in lagu dhawaaqo kaliya ayaa hartay. Berri baa lagu dhawaaqi karaa, beri danbaa lagu dhawaaqi karaa. Adi isbuucan dhexdiisa ayaa la sheegayaa in Arsenal ay ku dhawaaqi doonto ciyaaryahankan. Marka isna waan arki doonaa. Haddaba akhyaarey wixii warar oo kale oo soo cusuboonaada waa idin soo wadaagi doonaa. Haddana waxaa idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.